السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلا halkaad nagala socotaan waa Malaysia TV oo maanta martiin ugu eed walaashin Samiira Xasan Cali kaga warbixinaysay xaaladaada caafimaad waa kulli muuqaalku waa aragtaan dibkeeda waa gabar u baahan caawinaad weyn qof walba oo muslim ah ha joogo dal iyo dibad oo Soomaali ah ayay u baahan tahay caawinaad lambarkeedana way la wadaagtay shaashada in soo saar doona dawladnimo iyo akoonkeeda ba ay leedahay sida ay sheegtay akoon in leedahay sheegtay ma haysato qof garab siiya oo baxnaaniye waxay u baahan tahay garabkeeda muuqaaladaas waa la wadaagi doona insha Allah muuqaalo dareenkeeda wato way hilibkiya ka maqan dhakhtarkana soo u sheegay waxay u baahan tahay baxnaano soo meesha hilib ugu soo dhashto gacanteeda way shaqeynaysaa tabar ma lahan laakiin waxa waaye marka muuqaalka aragtid aad ugu naxaysaa waxa kaliya in ka codsanayeen waxay tahay qof walba la ilaaha illa muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam dhahay inuu gabadha soo caawiyo muuqaalkan haduu soo gaaro ku caawi adadan xataa wax halka door xataa ka xasdin u dir lambarkeeda ugu dir waxbuu u tareeyaa meel ka anfacaya haasdin inta wax weyn la raadis dheesid aysan kugu qadin agtaada aysan ku baabiin marka halka door hadaa haysid xataa mobilkeeda meesha ku qoran yahay akoonkeeda meesha ku qoran yahay waxa uu ugu dir kun ku aruuro wax badan noqon karo halka aruuro wax badan oo noqon karo idin anfacay adina maalinta qiyaam ilaahay miisaanka xasanaad wax kugu diraa wax la sadaqaystan waxa ugu fiican qof walaalka caawisid abaha aata ugu yaraatay wax yar baa aadaani aad ma santiin wax kale oo arrin inaan la dawlado waxay tahay qof walba oo caawinaad u baahan inaad caawisaan aadan ku fiirsanin asdiinina qofkan walaalkiina maanta ma haysid wax ma haysid war hal door hadaa haysid ka maarantid qofka si magacayga Samiira Xasan Cali waaye Malaysia TV waxa uu soo booqday maanta inaan la wadaago waxa kamid ah dadkii ku dhaawacmay qarxii Soobe 14 October 2017 saameyn xanuunkeeda la eegu ii geystay maskaxiyan xanuun ii geystay jir ahaan xanuun ii geystay qarxaas maalintii uu dhacay garabka midigta wax iga soo gaareen ilaa gacanta halkaas waxa meesha iga qaaday qof meesha joogay oo ku sugnaa isbitaal Madiina geeyay laba qof kaleeto ahayn maqaayada oo meesha ka agdhow ku soo ordaani markuu qarxay uu dhacay oo kadib gacanteeda way kala fakatay waan argagaxay inay igu irabta u maleynayay saas darteeda u shoogay sidii markaas niyad ahaan ay niyadeeda saameyn u geystay marka ilaa had saameyntiis kama soo kabanin qarxii Soobe si fiican waxa waaye isbitaal oo Muqdisho ku yaala lagu daaweeyay Digfeer waxaan i garab istaagay dad qaraabada ah oo abti ah marka waxa waaye sidii u fiicnaaday guriga ugu soo laabtay kadib marka xaaladeeda caadi kuma soo noqonin marka xaafadeeda ku soo laabtay markaas waxbarasho ku jirtay secondary form 2 iskoolkii kuma laabanin oo niyad ahaan oo qarxa ii saameeyay hadda waxa waa nolol iska normal waaye hooyana way iga xanuunsan tahay marka aaban wuxuu ii sheegay inuu garab qaban karin uusan wax ii awoodin waxa ka codsanayaa dadkayga Soomaaliyeed inay soo caawiyaan ee garab qabtaan meel waliba ay joogaan nambarkayga furaha eber waaye 82 96 10 furaha eber 82 10 96